daawadayaal kusoo dhawaada asxaabi films jannal oo aalaaba idiin soo gudbisa barnaamij aad u xiiso badan. barnaamijkana waa barnaamijka arrimaha bulshada oo aan kusoo qaadanayno tobanka jilaa oo ka mid ah tirishooyinka Bollywoodka misana guursaday rag lacag leh iyagoo u xushay dooqaas lacagta ay raggaasi leeyihiin. barnaamijka waxaynu kusoo qaadan doonaa 10 atirishada koowaad ee guurkeeda ku xulatay lacag ee aanan ku dooqanin jacayl ay ninkaasi u qabto amaba aqoon kale. waxaa kowka atirishada caanka ah ee Shilpa Shetty waxa ay ka mid tahay atirishooyinkii Bollywoodka soo galay 90-maadkii waxa ayna ka mid ahayd xidigihii ugu firfircoonaa sanadihii 1990kii ilaa laga soo gaaro sanadku markuu ahaa 2000. Shilpa Shetty waxa ay xiriir jacayl la sameysay jilayaal badan oo ay ka wada tirsan yihiin shirkadda Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya. waxaana kowka jilaaga caanka ah ee Akshay Kumar ugu dambeynna ay kala tageen. arrintaasi Shilpa Shetty waxa ay ka qaaday moraal jab iyo niyad xumo. ugu dambeynna waxa ay go'aansatay inay guursato ganacsadaha weyn ee Raj Kundra oo ka mid ah bilyaneerada dalkaasi Hindiya ayay guursatay Shilpa Shetty oo haatan waxay u tahay xaaskiisa. waxa ay u haysaa hal gabar. waxa ay ku wada nool yihiin nolol farxad leh maadaama ay heshay nin ganacsada oo maareyn kara nolosha iyada iyo caruurteeda. jilaaga labaad ee iyadana ka mid ahayd atirishooyinka Bollywoodka ee shakhsiga ay nolosha la wadaagtay ku xulatay lacagta oo aanan u fiirin haba yaraatee da'da iyo shaqada uu qabto waa atirishada caanka ahayd ee Juhi Chawla waxa ay ka mid ahayd atirishooyinkii ugu firfircoonaa amaba ugu sumcadda wanaagsanaa shaqaasamaadkii. waxa ayna ku guuleysatay bilada badan. ugu dambeynna Juhi Chawla markii ay ka weyday jilayaasha ay Bollywoodka ka wada tirsan yihiin mid ay jacayl la wadaagto waxa ay guursatay ganacsadaha weyn ee Jay Mehta. waxa ay u haysaa caruur waxa ayna ku wada nool yihiin nolol farxad leh maadaama uu yahay nin ganacsada oo hanti badan leh. atirishada saddexaad ee iyadana dooqeeda ku xulatay xagga lacagta waa atirishadii caanka ahayd ee fanka kusoo beertay 80-maadkii ee waa Sara Devi waxa ay fanka kusoo beertay 80-maadkii waxa ayna ka mid ahayd xidigihii ugu wanaagsanaa dhamaadkii 80-maadkii iyo bilowgii 90-maadkii. Sara Devi waxa ay xiriir jacayl la wadaagtay Sanjay Dutt. ugu dambeynna waa ay kala tageen. niyadjabkii ay Sanjay Dutt ka soo qaaday Sara Devi waxa ay xiriir jacayl la wadaagtay Pony Kapoor oo ah walaalka ka weyn Anil Kapoor oo ahaa filim sameeye hanti badan leh. ugu dambeynna waxa uu xiriir jacayl dhex maray labada qofood oo ka wada tashay shirkadda Bollywoodka. filimaan badanna waxa uu u sameeyay Pony Kapoor Sara Devi waxaana filimadaasi wada jiray Sara Devi iyo Anil Kapoor oo ah dumaashigeed. ugu dambeynna waa ay isguursadeen. waxaa u jooga 2 caruura labada lamaane. inkastoo Sara Devi iyo xiriirka Pony Kapoor uu sababay inuu Pony Kapoor xaaskiisii hore ay kala tagaan. atirishada afaraad ee iyadana xiriirkeeda jacayl ku xulatay xagga lacagta waa atirishada caanka ah ee Amrita Arora oo ka mid ah atirishooyinka caanka ah ee Bollywoodka. filimaan badanna wax ka jishay. filimada ay samaysayna waxaa ka mid ahaa filimkii Hi Baby iyo Bad Peggy iyo filimkii Dilki Sadri. atirishadan markay filimaantaasi jishay kadib Bollywoodka waa ay la qabsan weyday. ugu dambeynna waxa ay xiriir jacayl la wadaagtay Shakila Dutt ayay xiriir jacayl la wadaagtay waana ay isguursadeen. ugu dambeynna waxa ay degeen magaalada Mumbai halkaasi oo ay nolol farxad leh ku wada nool yihiin. atirishada shanaad ee shakhsiga ay guursanaysaa ku xulatay xagga lacagta waa atirishada caanka ee Vidya Balan oo ka mid ah atirishooyinkii ugu wanaagsanaa xagga jilliinka ee fanka kusoo biiray. waxa ay xiriir jacayl la wadaagtay jilayaal badan oo ka tirsan Bollywoodka balse ugu dambeyn wax natiija markii ay ka weyday waxa ay si toosa isugu dhiibtay Siddharth Roy Kapoor oo ah madaxa Film and Television Production India. waa wakaaladda filimada ee dalkaasi Hindiya. ninka madaxda ka hanti badanna leh ayay ugu dambeyn xiriir jacayl wadaageen oo ay noqdeen 2 lamaane oo aad isugu qanacsan noloshana si farxad leh ku wadaaga. atirishada lixaad waa Ayesha Takia oo ka mid ah jilayaasha Bollywoodka kusoo beeray sanadihii 2000 wixii ka dambeeyay. waxa ayna wax ka jishay filimkii Wanted ee uu Salman Khan aktarka ka ahaa. waxa kaloo ay wax ka jishay filimkii No Smoking.
atiriishadan oo fanka ku jirta ugu dambeyn waxa ay xiriir jacayl la wadaagtay farxaan azmi oo ah wiil u dhalay siyaasiga weyn ee magaalada Mumbai qayba kamid ka ah ninka madaxa ka ah waa nin ay walaala yihiin ninka hantida badan magaalada Mumbai ku leh ee reer Azmi aabihiisna waa siyaasi ka soo shaqeeyay dalka Hindiya muddo badan siyaasadda ku soo jiray oo ku soo guuleystay kuraas badan oo magaalada Mumbai laga tartamo kana mid ah xisbiyada ugu awoodda badan ee gobolka Maharashtra waa ay isguursadeen Ayesha Takia iyo Farxaan Azmi waxa ayna wada degan yihiin magaalada Mumbai oo ay ku wada nool yihiin nolol farxad leh oo ay ku qanacsan tahay atiriishada Ayesha Takia atiriishada kale ee ayadana ku xulatay shakhsiga in nolosha la wadaagaysa xagga dhaqaalaha ama lacagta uu leeyahay waa atiriishada Kim Sharma oo kamid ah atiriishooyinka Bollywoodka caanka ku ahaa iyadoo filimo badan wax ka jishay filimka dar ee Sunodol iyo Shayruqan 390 special appearance ayay ku leedahay iyadoo aad u yar filimkii Muhabbatain ayay wax ka jishay ee Shayruqan iyo Amitabh Bachchan waxay kaloo wax ka jishay Fida waxay kaloo wax ka jishay filimka Nihla Dehliya Yagam ayay wax ka jishay Khadgam Tom Dick and Harry Mani He Tohene He waxay kaloo wax ka jishay Kehta He Dilbar Par oo sanadka 2002 soo baxay keen 2005 atiriishadan oo filmo badan oo Bollywood ka dhisay waxa ay ugu dambeyn xiriir jacayl la wadaagtay bilyaneerka reer India ee Ali Punjani waa ganacsade aad looga yaqaan dalkaasi Kenya kamid ah bilyaneerka reer India ka soo jeeda waxa uu degan yahay magaalada Mombasa isagoo xarumo ganacsiyo aad u waaweyn ku leh waxa uu guursaday ugu dambeyn Kim Sharma oo ahayd atiriisha Bollywood ka tirsan waxa ayna aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada Mombasa ee dalkaasi Kenya haatan waxa ay degan tahay magaalada Mombasa oo ay nolosha kula qaybsanayso ganacsadaha reer India ee haatan degan dalkaasi Kenya ee Ali Punjani waxa kale oo ku xigay oo atiriishada toddobaad ee ku xulatay xagga lacagta waa atiriishada Dimbi Ganguly oo guursatay Rahul Mahbajan iyada oo ku xulatay xagga lacagta waxa ay isguursadeen 2010 ilaa 2015 ayay wada deganayeen inkastoo markii dambe Dimbi Ganguly ay sheegtay inay sheegtay lacagta ay ku xulatay Rahul Mahbajan ay san ahayn wax wanaagsan oo ay iska furtay waxa ayna guursatay sanadkii 2015 Rohit Roy oo ay tiri xiriir jacayl ayaana dhexmaray Rohit Roy waa jilaa ka tirsan Bollywood ka sameeyana filimada musalsalada mataxanaha ka baxa TV-yada Hindiya atiriishada sagaalaad ama dhaqaalaha uu leeyahay ku xulatay waa atiriishada caanka ee Tina Ampani waxa ayna guursatay Anil Ampani oo ay wada degan yihiin si nolol farxad lana ay ku wada nool yihiin maadaama oo ay heshay qofkii ay rabtay oo maareyn kara nolosheeda wax kasto ay rabtana agta ka soo dhigi kara atiriishada tobnaad ee aan ku soo qaadanayna barnaamijka oo ku xulatay jacaylkeeda dhanka lacagta waa atiriishada Selina Jetli oo ku xulatay jacaylkeedii waxa ayna guursatay Peter Hag oo reer Australia ah waxa ayna ku xulatay nin lacag badan haysta atiriishada Selina Jetli waxa ay qaab ku guuleysatay Mrs India waa aktarad kamid ah filimada ay sameeyeen waxa kamid ah filimka No Entry iyo Golmaal Returns iyo filimka kale ee Shakalaka Boom Boom atiriishadan waxa ay jacaylka la wadaagtay ninkaas ajnabiga ay kala yihiin ee ka soo jeeda dalkaasi Australia iyada oo ku xulatay hantida uu leeyahay daawadayaal shakhsigu waa uu ku xulan karaa qofka uu rabo haday ahaan lahayd maal haday noqon lahayd qurux haday noqon lahayd maal haday noqon lahayd nasabnimo iyo akhlaaq intaba waa lagu xushaa daawadayaal 10 atiriisha oo jacaylkooda xiriirkooda jacayl ku xushay dhanka lacagta intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxaad ka daawanayseen Saxafi Films Channel hamogaanina subscribe inaad tiraadaan Saxafi Films si aad u rukumataan ama aad ula socotaan barnaamijyada xiisaha leh ee ka baxa Saxafi Films Channel fikirkiinana waxaad inoogu reebi kartaan qaybta comments-ka ee isla Saxafi Films Channel inagoo isku duuban oo baada Saxafi Films waxaynu idinkaga tageynaa waqtigo markuranba markulada barwaaqo waa kiraana duuyadu hadda
قلم بعيني وقتي قمر قرنبا مركز لدى برواقو واكرانا الدويدو حد قلم بعيني ذكر روحا قعن مرن inkastoo go'awlani garabkiisa suray yahay yan waayi gabay ugu oran gobmaawo waxaad gelinba aragtiyo xadbadhaaya gudko yay garasho hadda garasho kaa noqon gacan maran inkastoo go'awlani garabkiisa suray yahay yan waayi gabay ugu oran gobmaawo waxaad gelinba aragtiyo xadbadhaaya gudko yay garasho hadda garasho kaa noqon gobonnimo hawada bidi ruuxa galab isbarateen hana moodin gacalka guushaada ruux neceb gobonnimo hawada bidi ruuxa galab isbarateen hana moodin gacalka guushaada ruux neceb adigoo gargaar biday ruuxa gacan ku siin karaa abaal maanta wuu gabay berriyaan ku gelin adigoo gargaar biday ruuxa gacan ku siin karaa abaal maanta wuu gabay berriyaan ku gelin cimrigiyo gugaagiyo garaadkaaga kaasho guro cadalka hawl hakuwaay ruux goba erayaan kaagin cimrigiyo gugaagiyo garaadkaaga kaasho guro cadalka hawlan hakuwaay ruux goba erayaan kaagin cimrigiyo gugaagiyo garaadkaaga kaasho guro cadalka hawl hakuwaay ruux goba